wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa ayaa ka warbixiyay safar ay saraakiisha qadar ku tageen magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug iyo tiimkii aniga iyo wasiir ducaale iyo taliyaasha ciidamada waxaan u soo gudbinay baahidayada iyo sida ay wax yihiin waxaan u sameynay presentation oo ah baahidayada waxaan u baahanahay waxaan hor yaalla muhiimadda uu gobolkan u leeyahay haddii la xoreeyo ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha naga hortaagan in la xoreeyo dib u habeynta iyo dib u hawlgelinta ciidanka qaybihiisa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxyaabaha naga hortaagan challenge-kana haysta ay tahay inay naga caawiyaan marka iyaga ra'iisul wasaaruhu si fiican bay isku wada fahanay dhammaanteen kadibna waxaan soo booqanay meelaha la doonayo in ciidanka lagu xireeyo sida saldhiggii booliska oo burbursan gebi ahaanba aan rabno inay naga caawiyaan dib u dhisaan si boolisku u gutay waajibaadkiisii ahaa amniga inuu sugo amniga magaalada iyo gaar ahaan amniga gobolka Galmudug waxaa kaloo ay soo booqdeen xarunta nabad sugidda oo wiilal dhalinyar oo ciidanka loo qaatay ay ku jiraan iyada lafteeda waxaanay tusaynay inay naga caawiyaan iyagana sidii tababar iyo dib u dhis loogu samayn lahaa waxaa kaloo booqdeen qaybta 11aad oo ahayd xaruntii ciidankii marka laga reebo qaybta 16aad ugu awoodda badnaa ee Soomaaliya oo burbursan isla markaana ciidanka Al-Sunna lagu diiwaangelinayo oo diiwaangelintii iyadoo socota ayay booqdeen ciidankii taagan yahay la diiwaangelinayo waad u jeedeen burburka ka muuqda xerada inay dib noogu dhisaan waa rabnaa at the same time in ay noqoto meesha ciidanka lagu tababari doono ayay ahayd marka arrimihii aan soo qaadnay iyo waxyaabihii aan ka codsanay oo dhanna si ful ah ayay nooga aqbaleen waxaan mahad gaar u celinaynaa dowladda Qatar oo ku hawlan inta badan مساعدة المدة الصومالية جرب تاجر سيدا دبعتها هذا كل شيء وقبل هلا جرهنا وزارة القشان لقى واحد مرة بنا له إن لا جرب تاجين وحين مساعدة أما تاجر وأنا قبل عنه قطع من عيران عنه قطع من لغالة وأدوبتي هاي بابور أنا حبض كريم ودوري تدوات كله إن أمر له توجد وزارة القشان لقى marka hawlihii ay ku tabarucayeen ciidan madax xoogga dalka Soomaaliyeed ay bay soo balaadhiyeen waxaan rabnaa gobolkan Galmudug dowlad goboleedka Galmudug waxa uu soo intaanay dhawaan ka dhici doonto dib u heshiisiin kadibna doorashadii marka inta ka horeysa inaanu nabadgelyada sugno ciidamada aan ahayn kuwa dowladda laga dhigo dowladda si muxuu nabadgelyo ah ay arrimaha la rajeenayo ay u dhacaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Cali Xagaa oo ka warbixinayay ujeedka safarka saraakiisha qadar ay kula kulmeen ra'iisul wasaare Khayre ayaa sheegay inay u joogaan dib u howlgelinta ciidamada qalabka sida Ismaaciil Aadan Bariisa Somali Cable TV magaalada Muqdisho